Habenka Hal Aburka Hiboyinka Hablaha Awdal waxa uu ahaa bandhig ballaaran oo habeenkii xalay ka qabsoomay hotel race ee magaalada Borama taasi oo hablaha hal abuur kale ku nool gobolka Awdal ay ku soo bandhigeen hal abuur kala duwan oo ay ku dhiiradeen si ay ugu maareeyaan nolol maalmeedkooda habsami u socodka bandhigani oo ahaa mid hanaankiisa dhicitaan si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin tiro badan oo ay ka mid ahaayeen maamulka gobolka Awdalka degmada Borama agaasimo waaxidyo ka socday qaar ka mid ah wasaaradaha laamaha dawladda wasiirro hore ganacsato aqoon-yaan waalidiin oday dhaqameed iyo dhalinyaro tiro badan oo isugu jiray wiilal iyo gabdho iyo sidoo kale kooxaha ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo halkaas ku soo bandhigay ciyaar dhaqameed barnaamijkan ayaa waxa ugu horeyn hadalka furay isla markaana faahfaahin ka bixiyay ujeedada laga leeyahay asma gagajiro kamid ah hablaha soo qaban qaabiya barnaamijkan waxyaabihii lagu dhaliyay waxay ahaayeen maadaama hablaha reer Awdal lagu xanto ama ay yihiinba hablo aqoon leh hablo hibo leh hablo wax kasta leh inaan soo bandhigno on dadka caalamka iyo Soomaalidaba indhahooda ku soo jeedino barnaamijka waxaan la soo marnay inaan ka fikirno inaan diyaarino sanadkiisii bay ahayd maalinta qabanay sanadkaas oo dhan waxaan rabnay wax ka duwan sanadkii hore inaan soo hordhigno barnaamijkan halka aan ku wadno ee aan rabnay inaan gaarsiino sidaan hore inagu sheegay waxa weeyaan dhammaanba geeska Afrika waxaan rabnaa inay gabdhaha reer Awdal noqdaan gabdho lagu hirto gabdho ka tilmaaman gabdho aan la agdhigi karin gabdho kale inta kadib waxa iyaguna halkaasi ku soo bandhigay hal abuurkooda qaar ka mid ah haweenkii ka qayb qaadanayay bandhigani iyagoona ka sheekeeyay marxaladihii kala duwanaa ee ay kala kulmeen intii ay ku guda jireen hal abuurkani sidoo kale waxa hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay bandhigani iyagoona hadallo isugu jira dhiirigelin iyo taageero u jeediyay haweenkani soo bandhigayay hal abuurka caawa farxad bay ii tahay hablaha gobolka Awdal oo hankooda iyo himiladooda soo bandhigay waxay in badan ku taamayeenna maanta keenay farxad weyn bay ii tahay hawl waliba halkeeday leedahay habeenkan caawa waxaan leeyahay waa habeenkii hablaha dhalinyarada waa habeenkii hadalaado hore marka dhalinyarada hablaha Hal Aburka hawl gobolka Awdal Borama aad baan idin soo dhawaynaynaa aad baan idin hambalyeeynaa aad baan idin ku mahadnaqaynaa dumarka hal abuurkooga yaa horay aan ugu ogeyn marka aad baan u bogaadinayaa waan ducaynayaa laakiin waxaan ku dardaarayaa ugu dambayn inayna tafaaruqin oo afkaaraha iyo siyaasadaha rag ku qaybsan yihiin ama haybaha ay ku qaybsan yihiin inayna qayb ka noqon oo iyagu istaageeraan maanta halka waxaynu ku arkaynaa oo la soo wada bandhigay waa gobolada waxaad ka aad uga horeysaan oo ma sha Allah ya gobolna aanu maanta aanan oran kareen gabadh kale ayaa sameyn karta ama juhdiga inta la gelin karta waxaad geliseen waxaan leeyahay mar kasta mabruuk tirakoobkeena adduunka meel walba hadaad eegto waan iska daba dhownahay 50% na waa dumar baa la dhahdaa 50% na waa rag marka waan isla eegnahay haddii baarlamaanku 28 yahay waxaad helaysaan 40 idinkoon koontalaydu xiray isku codeeya soo sharaxa haweenka qaar idin kamid ah kuwa u codeeya waxaad helaysaan 50% ama 41 markay noqoto golaha baarlamaanka hablaha Awdal maadaama xafladan sida quruxda badan maanta u soo qabateen anigu waxa jeclaan lahaa xafladahanu inay noqdaan xaflado laga qaato ama laga sameeyo gobol kasto Soomaaliland ila idinkuna u noqotiin hormadka ama hablaha kare health Soomaaliland ina idinku number 1 ka noqotiin anaguna waa nagu garab galeynaa in aad farshaxankiina iyo fikirkiina keentaan dawladda arkaya kursiga la leeyahay waxa lagu sameeyay 2 cisho waxaan daawanayay imika sawirkii maxaan ku lahaa sariirta iyo guriga haddaan intaaba gaadhnay alaabtii Turkiga ka imanaysa oo ka marmi karaa marka waxaan leeyahay inantaas xabda leeyahay hambalyo waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa iyadoo waqtigu gaaban yahay dhidhinayay hablihii halkan ku soo bandhigay hal abuurkoogii hadday tahay xamda hadday tahay shukri hadday tahay farxiya hadday tahay shukri faarax iyadna sahra iyo malyuun dhammaantoodba aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya runtii
waxqabadka ay muujiyeen barnaamijyada aan qabanno waxyaalaha ka midka waxay haayeen inay wiilalu wax badan soo bandhigaan laakiin doorkan labadii sano ugu dambeeyay xagga haweenka waxyaalaha qiimaha leh ama aadis ha noqdaan ama cunto karin ha noqdaan ama meherada ganacsiga samaystaan oo wax ku cusub geyga Soomaalida ama gaar ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland waanu hambalyeynaa waxaan leenahay hambalyo hablaha hawsha u guntaday ee gobolka Awdal ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Timbaro halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri waxaan ku bogaadinayaa Hal Aburka samayseen waxa dhiirigelinayna in waxa soo saartaan ay idin gadmaan oo leedin ka iibsado anagu inta beeraleeyahay waxaan ballan qaadayaa laba hodheel baa Hargeysa ku leeyahay inaan qusbada ka iibsado waxa la inooga baahan yahay inaanu inagu wax soo saarkeena kordhino oo inu ka maarano aad baan idin ku dhiirigelinayaa waxaan aad ugu bogaadinayaa inanta farshaxanka sawirtay markaad adduunyada la socoto sawirro yar noocaas aad arkaysaa malaayiin dollar la kala siisanayo waxaan idin leeyahay hambalyo inanta caawana cashaysiina kulli gurigiisii ka soo cashaynaya ma jiro intii wax cuntay inantana waxaan leeyahay aad baan kuugu bogaadinayaa waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Borama